waxaa muslimiinta qeyrka jecel laga codsanayaa in ay ka soo qayb qaataan dhismo ballaaran oo loo sameyn doono masjidka Quba oo ku yaala deegaanka Lungu. Masjidkan ayaa waxaa salaadaha waajibka ku oogi doono dad tiro badan, balse waa meel aan ku filnayn dadweynaha halkaasi ku nool. Waxaa laga codsanayaa in ay ka soo qayb qaataan. Waxaad ugu qayb qaadan kartaa tabartaada sida xaanada, shamiindada, alwaaxa, dhagaxa iyo wax walba oo dhismahaasi u baahan yahay. Sidoo kale waxaad diri kartaa lacag inta tabartaada ah. Culimada masaajidkan gacanta ku haysa ayaa sharaxaya waxay u baahan yihiin. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan salaamayaa muslimiinta dal idibid meel ay joogaanba meeshaan aan taaganahay oo media u taaganahay waa masaajid qaabka asleeyahayna waxa u maleynaa muslimiintu waa arkayiin meesha horta aan joogno waa ismaamulkii Mandera gaaraan sublocation lafay magaalada Lungu. Meeshaan waad u jeedin jaangadan waxa loo sameeyay masaajid oo ummadana qariga u dhig qabta dadkii meeshaan joogana inta haddaan ay tahay way dhaafin waayeen. Marka hadda media waxa taaganahay muslimiinta meel ay joogaan ha joogeena masaajidkan inay nagala qayb qaataan oo inoo dhisaan oo sida haddaan aysan inooga bedelaan. Masaajidka waa guri Ilaahay annaka waan u joognaa kayna maha Ilaahay subhanahu wa ta'ala gurigiisu waa marka gurigaas aan rabaa muslimiinta meel ay joogaanba inay nala kaalmeeyaan. Ninkii ma taqaana asaga wala qaban kara, ninkii wax ku darsan kara, ninkii ma taqaana xoog ku darsan kara, ninkii carab ku darsan kara, shay alla in walba inta tabartiisa ayaan rabaa masaajidka in nagala kaalmeeyo meeshaan aan joogno. waa lagu rafaasiyahay kulayla loo gal leeyahay waa jaangad oo laga sameeyay wixii bahalaas qona waa iska dima dhibaato badan ku qabnaa intaan waa dhaafin wayna anaka markaan ahan alamaan dadka qariir degan marka muslimiinta aan gaarsiinayna walaalaha maxaa yeelay muslimiinta meel ay joogaan walaalo waa gurigaan waa guri Ilaahay marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanala kaalmeeya waxaan rabnaa oo meeshaan u taaganahay masaajidkan in la dhisa مسلمين أين لم نركسدان. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده لا يكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال له تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى له بيتا في الجنة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الله سبحانه وتعالى يقوم هذا إلى مارتي يقول بيت نوسه كل ميت مدة كل عيت ولا ليال هل كان عن هو ماني مساجد كان أدر كيسين ومار جيجت كسم يسن أولي مار مسجد مار في قبة وكيا المار تجمع اللونجو مار لفيس في كاونتي مدار كاونتي وهل كان بعض ودرينا مسلمين نلبس الجوان تذكر خير رجال تذكر مرحب خير رجال تذكر تاجرين تومار خير رجال مسلمين نلبس الجوان إنه يقول الله سبحانه وتعالى جيجت كسم يسن إنه نو بدل نجاح مر أصل أصلا سجدنا هنا وأي مسلمين تقايف ويجعلين قال لك الصومالي نلقى الجوان ويجعلين قريش الله سبحانه وتعالى قال يقوم بعيال أي لسان نلقى الجوان دل يدبد مشي الجوان ويجعلين مساجد لسان صار درجة مار مسلمين عالم كسر الجوان عن باقي درينا إنه يقول الله سبحانه وتعالى أساسكم مع وأن المساجد لله إلى يحيي مار قريش أنا أسكال الله سبحانه وتعالى مار يقول الله سبحانه وتعالى مسلمين عن درينا إنه ينور لسان وبار مباتة إنه بدلانه وناح إنه بدلان بدلنا هذا جوجش زارك يصير مار سلال بيمار لقو تقدا مار خير الله يصير مسلمين مالك الجوان هذا اللي يدعو عن كسر علم عن كسر الله بايع مسلمين خير الله يصير قول الله سبحانه وتعالى وحربنا إن الله لو بدلانه ومارت إنه هذا يجان إليه سبحانه وتعالى سيد مركي قيام على السكوب هذا وقول الله سبحانه وتعالى جنة عدين الوسبة يا مسلمين تأنجبرين جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waxaan cod u dirsanaynaa oo joognaa meesha liiraha countiga Mandera qaas ahaan district Lafey qaas ahaan ward Lungu waxaan cod u dirsanaynaa muslimiinta masaajidkan rojinkada laga sameeyay oo mabaatin aan ka sameeyay haddaan iska rafaadsan anagan aan ku hoos rafaadsanahay
qorraxdan ay nagu haysa muslimiinta aan u codsanaynaa inay masaajidka noo dhisaan ninkiis ilaahay wax sii ay masaajidka noo dhisaan codsanaynaa waan ku celcelinaynaa muslimiinta ninkiis ilaahay wax sii inay masaajidka noo dhisaan tiirkiisa waa u jeedin waa baaw gugishiisuna waa salli annagan intaan ka badan waa awoodi weyne dhulkiisa ayaan raadini dhulkiisa ayaan soo galnay jiingadan yarna waa ku dhisini insha Allah biidhnillaahi tacaala waxaan leenahay muslimiinta meel ay joogaanba masaajidkan inay noo dhisaan ayaan codsanaynaa. alxamdulilaahi rabbil caalamiin wal caaqibatu lil muttaqiin falaa cudwaana illaa calaa zaalimiin alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala waxaan halka aniga waxaa la yidhaahdaa macallimiinta hore waxaan ahay masaajidka imaamkiisa meesha macnaha waxaa weeye meesha masaajidka gaar ahaan si jira masjid quba la yidhaahdaa waa tuulada Lunga meel ka mid ah markaan alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala dadka walaalaha muslimiinta muxsiniinta wax baxsadaan waxaan ka codsanaynaa meesha aan taaganahay way u jeedaan insha allahu tacaala biidhnillaahi alkariim inayna kaalmeeyaan masaajidkaas ay wax nagala qabtaan taas ayaan ka codsanayaa. alxamdulilah rabbil caalamiin rabbihi nasta'inu amru ad-dunya wa ad-din sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. waxaan joognaa countiga Madera gaar ahaan Lafey gaar ahaan Lungu masaajidkan yar u jeedina maxaan ku raadin joognaa Lungu la yiraahdo masjidka la magaceeda waxaan codsan haynaa muslimiinta meel kasta oo joogaan dal iyo dibad caalamka meesha ka joogaan masaajidkan maxaan ku raadin buuladaan u dhisnay jeengadan yaraan dhisnay muddo hadda 2 sano laga joogo tiirka isku istaagnay waxaan maxaan ku raadin ka hagaajinay baaw abaar cunay oo bahal yar hoos ka soo gala abaarka cunay waa dhici raba dhowr jaran kabni masaajid gogol ma laha kuleel waa loogu jiri waay intaan yarna maxaan ku raadin magaalada dhexdeeda aruuris ilaahay qeyr hasi aruuridada aruuriyo maxaan ku raadin asaan lagu yeeli 2 sano maxaan ku jirnaa waxaan codsan haynaa muslimiinta meel kastoo joogto iyo dadka maxaan ku raadin ilaahay aas wax siiyay masaajidkan insaan nagula bedelo guri adnilaahi ma aha waa guri ilaahay waxaan codsan haynaa intii maqalkayna soo gaari oo codkayna gaaray inay maxaan ku raadin nala gurmadaan ay wax nala doonaan masaajidkan ay nala dhistaa hadda nin shaqo dhis ah iyo haddii maxaan ku raadin dad waxa isku dardartaa isaaba waxaan rabnaa guriga ilaahay in noola dhisi noola hagaajiyo xaafada dhammaan meeshaan ay maxaan ku raadin masaajidka aan haysanin masaajidka kale waa ku dheeraadeen koran u soo yara baxsanahay khayr fara badan Allah insi intaas codsan hayna wixii faahfaahin oo dheeraad ah waxaad kala xiriiri kartaa eber 1-1-8-8-9-5 ama nambarka kale ah eber 7-2-2 haddii aan si kale u dhigo 01-11-88-90-95 ama nambarka kale oo ah 07-22-70-78-77 fadlan ka qayb qaado dhismaha masjidka.